بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قدومي كحيين في كوبات أقل كسره ولانا أبشر مدحوينها دولتك بنت الله سعيد عبد الله بن مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدينة حسن الشيخ محمود. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدينة حسن شيخ شريف شيخ أحمد. قدومي أنا مدحوينها كوفر قلبات شريف شيخ أحمد. مدحوينها قلبي وزارة بين الصومالي عبد الكريم قلوب لما نحلنا الله لبدا عقل أصحابته كلا كل جلال كسر قال عبد الرحمن عبد الشكور مدح به هنا سيد الحولي هنا دور الجولات بنت لان عبد الرحمن فريلة لما نحلنا كلا حبناها لبدا عقل كتشويا بنت لان يوتيوب لان السنة وحجرتك عقاشة بعد صحافة قوية بمسيح ريتك هي مدى سجد أمني يكوهولا يتيمك قلن قابضة وحانا بالله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هاد علم سجود شرطان وحانا جين كم هاد علم يا وقت يدار هذاك ملقى هذاكين هي حالة هذاك انتي الناس المسؤولين ما انت هاد سجودنا هادين وحانا بالله هاي وحاد قبتين شقاء لكن وحان لا شكر على الواجب وحيد صار رايات قبتين وحيد كما العلمنا لكن ومن يسكون بنيه خصوصا هذا ملكيني يددكيني ويجي سوي عدوا لنا هي مناسب كستا هي ميع كستا يكفى بنا انت لا تمد يكون لنا مغنبة يكون لنا فكر كعبة انت عدان كبدو دولة جبلان وحينا لهي خدامي حلية ترتنك ايان كشاوي وشيدنا iyo danta iyo waxa aan anagu doonayno taasoo ahayd inaan mar walba ka shaqaynayno dib u heshiisiin isu tanaasul isku xidhnaan iyo wada shaqayn waa halhayska ay leedahay jubbaland mar walbana aa mid ay iyadu u taagan tahay waxaan ballan qaaday inaan dhammaystirayno sistamka dowladnimo waxaan ognahay soomaaliya sistamka dowladnimo ay qaadatee saddexda leeyara ee dowladda federaalka dowlad goboleedka iyo midda la dhisayo kaunsilada ama dowladaha hoose ilaa heer degmo gaaraysa inaan dhammaystirno oo aan doonayno sida asxaabta qaarkeed ay ka hadlayeen inay noqoto xilligan waktigiisa kale waxaa laga hadlayo doorashooyin ka dhaca ilaa heer degmo oo guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland ay ku hawlan yihiin sida ay deegaanada uga dhisi lahaan maamuladaas oo qori isu dhiib ku shaqayn doono haddii aynan kuwa deegaanada jooga xuquuqdooda helin ta dowladda goboleedkuna aynu helaynin ta dhaxana aynu helaynin ay noqonayso sharansano isku xidhan waa siyaasadda aan leenahay ee aan doonayo inaan xaqiijiyo sanadaha soo socda haddii ilaahay nala garab galo oo aan doonayno wejiga maanta aan ku jirro mid ka bedelan inaan gaari doono aanan codsanayo dadka reer jubbaland inay nagu taageeraan nagu garab istaagaan idinkana aada markhaati nooga noqotaan waxaa ka mida jubbaland aasaaskeedii hore oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka cabdikariimna uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha waan garanaynaa intii aan soo maray iyo broseskii iyo sidii lagu dhisay iyo dhibkii aan kala soo kulannay waxaan uga mahad celinayaa qaabka loo dhisay staydyada iyo sida loo dhammaystiray dowlad goboleedyada iyo marxaladda lasoo gaarsiiyey waxaa markaa aan xilligaa ku gaadhnay waxaad garanaysaan inay ahayd dib u heshiisiin dadkii aan isu keennay oo annagii iyo dowladdii jirtay xilliga aan isla qaadanay 7 madaxweyne sheeganaysa
iyo intaasoo isku caloolashubtay iyo intaasoo la maray intii la isu tanaasulay in la isugu yimid oo la yidhi war Soomaali kugusan iyo walaalo waxay ku dhaantay ma jirtee aan si walaalnimaha wax ku raadino maantana waxaan leeyahay way ka yar tahay tii hore tanaa ka fudud markaan Jubbaland dhisay midda maanta aan ku jiraa ka fudud waayo taasi waxay ahayd fikir kala duwan oo dad badan oo kala duwan ay ku hagaagayeen laakiin tan aftir bay leedahay iyo sumadday leedahay waa dowladda federaalka iyadaa rabaa inay xalkeeda keento saaxiibada aan isaynana iyo waxay xilfi la tahayna inay keento intaan isu nimaadno aan gobol ku wada fadhiisanno oon isu nimaadno oo dib u heshiisiin iyo wada hadal wax walba lagu dhameeyo waxaan hore u ballan qaaday dowladda federaalka ah inaanan diidanayn dhibaato aanan ku haynin wada hadal iyo isafgarad iyo isafgarasho iyo heshiis iyo isu tanaasul inay tahay waxa dowladnimada Soomaaliya ay ku waxaysan tahay haddii siyaasadda la fiiriyo qof waliba waxa uu rabo dantiisu ma u hirgelayso qof walbana rabitaankiisa ma aha dowladnimadu waa waxa isku keen wadi kara isu keen han kara inay wada midayn karaya midaan in laga wada shaqeeyo sidaa daraaddeed aabbaha iyo wiilka qofka waajibku uu saaran yahay waa aabbaha ee garanaya wiilkiisan waxaa ka maqan iyo qodobkiisu waxay tirsanayaan waxaan leeyahay markaa khalad kasta oo dhaca dowladda federaalkii mansilata abbay taagan tahay iyadaa laga rabaa inay sixitaan tanaasul wada hadal isu dhimrin ay la timaado waxyaalaha hadda dhaqamada qaarkood oo jirana waa waxaan Soomaaliya xal u ahayn oo calaacalku hadduu sii socdo uu sii xumaan karo waxaad garanaysaa burburkii dowladnimo ee Soomaaliya wixii sababay maanta qof kasta oo Soomaaliya joogay oo muddadii burburka joogay oo dhex joogay oo wixii waddanka ka dhacayay ogaa oo waxa ugu sahlan ay tahay Cabdiraxmaan Shakuur laba kooxood oo magaalada kuwa jooga kuwa kale raashin isu weydiinayay oo marxaladaha aan garanayno aan la soo maray oo aan xamar garanayno waxay soo martay qof kasta oo jooga oo dibadda ku maqnayna waddanka joogay wuxuu ka daqanayaa tallaabo kasta oo qalooc yar uu galo sidaa daraaddeed waxaan leeyahay madaxda Soomaalida waan idin jecelahay waan idin soo dhaweynaynaa madaxdaydii baa tihiin waan idin ixtiraamaynaa mas-uuliyaddiina aan idinku dhowraynaa laakiin garta haddayaan idinku ogeyn dadka dib u weydiiya waddankani waxa uu soo maray taariikhdiisu waxay ahayd waxa ka iman karaya ciribteedu meesha tegi doonto xaaladda siyaasadda waxaa lagu jiraa xilli adag oo ay jirto kala qaybsanaan iyo hardan siyaasadeed oo weyn laakiin waxaa hubaala in Soomaalidu ay isku khasban tahay kala maarmaynin ismuraynin ismawarta tahay oo meel ayna kala tagayn marnaba waxaad arkaysaa ninkii ka hadlayey ee gobolka Wajeer countiga Wajeer haweenka ka ahaa inuu Soomaali yahay yaftakhir uu ku faanaya inuu Soomaali yahay waxa uu qabo waxa la ahaa siday ahayd buu dareemayaa xageed u malaynaysaa inaan inteena kale usii kala tagayn calankan hadda lagu heesayey xidigta shanta geesri wajarmal baa inoo sameeyey 1954 marka laga hadlayo oo calanka muuna ahayn British Somaliland iyo koonfurta Talyaanigu guulaysan jiray ma ahayn fikir kale iyo xulum kale jiray xilligaas waxa dadku ay intaa u soo marayeen wax kala duwan oo badan bay ahayd aan idhaahna hadda khasaare kale laga sii sheegi karo intaan u qaxnay baa ku badbaadi haddaan isla burburi lahayn ba kasii daraan lahayd laakiin riyada xilliga halkaa joogtay maanta annaguna ma sii kala tegayno meel kalena uma soconno haddii dowlad Soomaaliyeed oo saldhigta oo wanaagsan la helana dadka Soomaaliyeed way isu buusayaanoo maanta ninka jigjiga jooga iyo ka Gaaris jooga iyo ka qof waloo Soomaali ka Jabuuti jooga Soomaalinimadu oo wax uu ku faanayo danqayso markuu dibadda joogo Soomaali baa tahay Itoobiya baa tahay waa sumad aan bedeli karin sidaa daraaddeed waxaa maanta inala hurra oo inala gudboon inaan ilaalino waxa inaga dhexeeya ilaahay baa Soomaali inaga dhigay isku dhaqan isku af waxaa isu yimaada qowmiyado kala duwan oo intaasoo af iyo intaasoo luqadooda laakiin waxaan u baahannahay hogaamin inaan helno alqiyaada raashida Soomaaliya maanta hogaamin bay u baahan tahay wax kale u baahan tahay ma jirto
aan ku dadaalano in waqtiga adaga laga bixi doono Soomaalidu waxay xusuusan doonto maalin ay dhibta ay ku jirto inoogu doonto haddii Ilaahay yidhaahdo waxaad ogaataan inta waddankani uu dib u dhis badan u baahan yahay dowladnimo la yagleelo iyo waddankan in dib loo ururiyo inay tahay waxa maanta inoogu muhiimsan waxyaabaha u baahannahay in la sheego ama si degdeg wax looga qabto waxay tahay waxa kow bal in dowladnimadii Soomaaliya la ilaaliyo oo dowladdii federaalka ahayd dowlad goboleedyadii siyaasiyiintii waxa ka dhexeeya waa dastuurka in isagii laga shaqeeyo sidii la isugu midayn lahaa ee wax looga qaban lahaa haddii la helo waxaa la yidhaahdaa dadkan hadda boojiska iyo meelahan ka ugaarsada waxay yidhahdeen uurkoolida ugaarsata macnaheedu waa maxay matalan markay ugaadhi doontaan hadday laba qof iskhilaafto hal eray isku khilaafto oo meesha ugu fog ay